وتكبيرات إخواني munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ayaa loogu sameeyay arday ku dhammaysay qur-aanka kariimka markiiska xaaji cusmaan ee daraasadda qur-aanka kariimka kaasoo soo saaray dafcaddii labaad. munaasabadan oo ka dhacday magaalada muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay mucallimiin, culummo, nabadoono, waalidiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, iyadoona bogaadin iyo tahniyad duusha loo saaray ardadii dhammaysatay qur-aanka kariimka qolkii eebbe. nabadoon ciise sheekh cabdi oo si weyn looga yaqaano magaalada muqdisho kana mida nabadoonnada ka soo qayb galay munaasabadda ayaa bogaadin iyo dhiirigelin ku sagootiyey ardaydii dhammaysatay qur-aanka kariimka qolkii eebbe. dhammaan ka sooqalayaasha xafladda tanqiimiga badanne oo ugu horeeyaan culamaa-udiinka, macallimiinta, waalidiinta, ardada, saxaafadda. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda asalaam, marka ugu horraysa allah ayaa mahadle isugu keenay xafladda tanqiimiga badanne oo ubadkeenna, ciyaalkeenna qalinjabintooda iyo farxaddooda inaan kala qayb qaadanana loo kugu yeedhay. runtii aad iyo aadaan maaragta ugu faraxsannahay. waxaan leenahay dhammaan markaska xaaji cusmaan iyo macallimiinta, waalidiinta soo abaabulay xafladda tanqiimiga badan ee dhiirigelinta u ah ardadeenna, ciyaalkeenna, ubadkeenna loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo. runtii aad iyo aad mahadsantihiin aan leenahay. annaguna mar walba waa idinku garab taagannahay in habka noocan oo kale wax loo soo agaasimo si ciyaalka qalbiyadooda loo wanaajiyo, dhiirigelin loogu sameeyo. sidoo kale macallin maxamed xaaji cusmaan oo ah maamulaha markiiska xaaji cusmaan ayaa ka hadlay aasaaska markiiska aadna ugu dheeraaday, isagoo ka sheekeeyey markiiska waxa uu qabtay oo waxa lagu barto. macallimiinta iyo mashaayikhda macadka tartiil, nabadoonnada dhaqanka, macallimiinta maraakista shareecada iyo diiniga intaba iskugu jirta ee xaafadda iyo kuwa inta ka baxsanba, waalidiinta farxadda aan ku naaloonana maanta hirgeliyey ama sahlay, marti sharafta qaybaheeda kala duwan, waalidiinta, ardayda qalinjabinaysa rag iyo dumar, intiina dhan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib, adduunka waxaa la siiyey waxa ugu qiimaha badan waa waqtiga. waqtiga adduunka lacagta asagaa lagu sameeyaa. qofka maanta waqti ku siiyey ee kaa ogolaaday 2 saac iyo 3 saac in ka badan in uu kula joogo waa nin runtii mudan qudayasho astaan diineedna leh. intaas markaan ka duwo aan ka tago markiis xaaji cusmaan waxaa dhibada loo aasay 21 bisha 10aad 2018 wuxuuna maanta farxadda aad la qaybsanaysaan dufcadii labaad. sanadkan sanadkiisa kale maantoo kale waxaan la damaashaadaynay arday kale oo saasoo kale qur-aanka dhammaysay. haddaba markiiska ayaa ka mida maraakiista lagu barta qur-aanka kariimka iyo culuumta diiniga ah. markiiska ayaa ku yaalla xaafadda yaaqshin, qaasatan caymiska. cabdinajax, warbaahinta cali fooldheere, Nairobi.